السلام عليكم. آمين آمين. tuula halkaa waan soo maray baa la tusay baabuur yaro dhayna aan ahayno haddana ka yaro markaas baabuurkan reemiga iskalo xoolaha lagu raraa markay meel abaari ka dhacdo lagu qaadaa baa la yiri dadka ilaa reer baadiyahoogi baabuur ay leeyihiin ma fuqaraaba may aqniya baan nahay dee waa la dhiman marka dhimashada marka maxaa ku xiga dhimashadu meel ay ku dhamaanayso ku joogsanaysa maaha dhimashadu waxa weeyaan magaaladan aad ka tagtay magaalo kale aad tagaysaa taas un bay la mid tahay hadda xalay anagu dhuusamaree baan seexanay saakan ay ninkaan nii imanay bari tolana laga yaabaa inaan dhoofnaba haddii alla yidhaahdo nolosha adduunyada caynkaasa meel baad ka tegi meel kale aad tegi aakhiraduna waa caynkaasu ma dheero qofku markuu inaga dhinto adduunkan unbuu ka baxay caalam kaloo cusub buu qofku galayaa sida ilmaha yar calooshii hooyadii markuu ku jirana waa caalam gooniyuu ku jiraa markuu ka soo baxana caalam gooniyuu qofku yimiday marka hore caalamul raxim buu ku jiray oo maaragtaane halkan wax kama cuneen xundurtu wax ka cunaayay oo waxay hooyadii cunto ayuu la wadaagay ayuu la cabaayay markii adduunka uu yimidana xundurtii waa laga jaray deedna qofkii adduunkana la keeno deedna labadan najdayn labadan baa marka ilaahay afkii baa ilaahay intuu u furay ayaa labadii naasi hooyadii caanaha ka soo baxaya ilaahay markaa ku ilhaamiyey marka adduunyuu yimid qofkii adduunyada insa la joogayaa ilaa calooshii hooyada 9 bilood baad ku jirtay 7 bilood baad ku jirtay adduunkana waxa laga yaabaa intii ilaahay ku qadaray baad joogi qaar baa 2 sano jooga qaar baa 10 sano jooga qaar baa 50 sano jooga qaar baa 100 sano jooga qaar baa hal habeen adduunka dhan baa joogo ka noqda haddana oo la odhanaya war ninkii hebel ahaa wiil baa u dhasho isla habeenkiiba ilmihii waa ka noqday maxaa yeelay inta un baa adduunka ugu qorneed wax kale adduunka ugama qornayn nabiyullaahi nuux calayhi salaam baa la yidhi cimrigiisu kunka kor buu u dhaafay 1500 ilaa 1200 baa lagu qiyaasay inuu gaadhay markuu adduunyada ka baxayna waa la waraysto waxaa lagu yidhi bal ka waran adduunyadii baa lagu yidhi wuxuu yidhi adduunka nolosheedii waxay ila ahayd nin aqal 2 albaab leh kaana ka soo galay kaana ka baxay bay ila ahayd buu yidhi inaguna maanta waxaan haysanaa cimrigeenna cimral gaalibka ummadani waa 50 sano 70 sano 60 sano waaba inta dhaafaysa way yartahay inta ka warrama haddaan ilaahayna abuuray aan ku ilowna ka warrama on ciyaar ku dhameysano iyo qosol iyo qabyaalad iyo sheeka adduunya hadda inta naga dhamaata ka warrama قالوا كم لبثتم في الأرض عدد السنين بالأورندونا قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون بنك قيامة مركي اللي يمادان لأورندونا أرلاد دوشيدي ميقات سو جوكتين مركابة أورندونا ما أرلاد دوشيدي أرلاد دوشيدي إمساد كسو نغاتين بالشيغا markaabay odhanayaan dee maalin ama maalin barkeed bay ahaydba nolosha dhan ee adduunka maanta eed wax weyn u haysatid adigu eed waxbarasho ka fikiraysid ee reer ka fikiraysid ee shaqo iyo adduunye iyo dhoof iyo aqallo iyo ubadi aad ka fikiraysid marka aakhiro la joogo banka qiyaamo la joogo ee lagu yiraahdo war adduunka imisaad soo joogtay wuxuu odhanayaa maalin ama maalin barkeed bay ahayd tiradii baan garanayna bal kuwa wax tariyay weydiiye buu leeyahay markaa baa la odhan doonaa in labithtum ilaa qaliilan low annakum kuntum taclamuun haddaad kuwa wax garanaya aad ahaan lahaydeen intaad ku soo nagaateen adduunku waaba in yar bay ahaydba waayo marka loo eego caalamkan adduunyadan joogno caalamka kale ee qabriga ay ku xiga haddana caalamka qabriga marka loo eego caalamka maaragtaane maxsharka qiyaamaha caalamka banka qiyaamee maxsharka marka loo eego caalamu siraad caalam la yidhaahdo haddana caalamka siraadka marka loo eego caalamu aljannati wannaar nolosha adduunyadu waxay noqonaysaa maalin ama maalin barkeed bay noqonaysaa markaa baa la odhan doonaa afaxasibtum annamaa khalaqnaakum cabathan wa annakum ilayna laa turjacuun ma waxaad u malaynayseen in laynii abuuray dheeldheel oo xaggan loo soo noqonayn taasaad u malaynayseen miyaabaa ilaahay odhan doonaa waqifuuhum joojiyaa la odhan doonaa innahum mas-uuluuna maanta waa maalintii la su-aalaya la weydiinaye maxaa la weydiinaya qofka dhallinyarnimadaadii waxay kugu soo dhaaftaa lagu weydiin cimrigii ilaahay ku siiyey waxaad ku soo qabataa lagu weydiin dhaqaalihii meesha uu kaa soo galay iyo meeshaad ku bixisay baa lagu weydiin
cilmigii ilaahay ku baray ama maqlo cilmiga dhegtaad ka caalim ahayd oo waxaad ahayd mid culummada dhegaysta ama mid dhigtay oo akhriyo oo qoro ayaad ahayd taana waa lagu weydiin doonaa lidaalika nabigeenu calayhi salaatu wasalaam waa kii lahaa iqtanim khamsan qabla khamsin shabaabaka qabla haramika sixataka daa soo sida sixataka qabla saqamika firaaqaka qabla shuqlika xayaataka qabla mawtika buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam shantaa nicmadood baa qofka la weydiin doonaa shantaas shan baa qof walba la weydiin doonaa ee banka qiyaama maxaad ku tala gasha nin walowba marka shantan nicmadood intaad haysatid buu nebi maxamed ku leeyahay shan ka hor jeeda intaysan kugu dhicin ka faa'iidayso dhallinyarnimadu waa nicmad ku soo martay ka faa'iidayso oo maxaad uga faa'iidaysanaysaa intaanad gaboobin qofku dhallinyaro markuu yahay u lugayn karayaa salaada intuu doonuu tukan karayaa qur-aan intuu doonuu akhrisan karayaa soonka intuu doonuu soomi karayaa diinta intuu doonuu baran karayaa diinta intuu doonuu ka shaqayn karayaa ilaahna xoog buu hayaa iyo caafimaad laakiin qofku hadduu mar 70 gaadho ama 65 uu gaadho baloomadiisoo dhan baa qofka dabcaya maqalkii waa yaraanayaa araggii uu yaraanayaa hadalkii uu yaraanayaa socodkii uu yaraanayaa jiifkii uu adkaanayaa xataa cunadii baa isbedelaysa wuxuu leeyahay waxaan ma cuna iga daayay buu leeyahay laakiin 20 jir markaad tahay wax walba waad iska cuni odaygu markuu 65 gaadho meel walba ma seexan karo wuxuu leeyahay anu aqalkayga meel aan ma seexan karo buu ku odhan laakiin ninka dhalinyarada halkaa buu iska seexan qofka dhalinyaradii maqalka uu soo daciifaya hadda maqalkeenu maasha Allah waa foor si fiican baad wax u maqlaysaan laakiin 70 65 markaad gaadhid qofka kula hadlay waxaad oran doontaa hadalka kor u qaad si fiican ku maqli maayo 70 haddaad gashid muraayad baad u baahan doontaa oo kiyaalaad u baahanaysaa deedna waxaad oranaysaa hadduu ku yimaado tiraahdo adeer maad garanaysaa kumaad ahayd baad leedahay kumaad ahayd bal isku kay sheeg baad odhanaysaa awoodan ilaahay ku siiyey inta aynan yaraan ee waliba laga qaadana ilaahay uu kaala noqon ayaa lagu leeyahay ka faa'iideyso dhallinyarnimadaada uga faa'iideysa gabowgaaga hortii buu nabi maxamed ku leeyahay alayhi salaatu wasalaam caafimaad qabka waxaad uga faa'iideysataa intaanad bukoon ilaa xanuun baa iman doona kolley waad soo socda xanuunku qofba meel baa laga qaban doonaa waliba zamankeenan inanka maanta waa zaman waxaan cunaynana ma aragtaane sax ma aha daawada la keenaya waddankana sax ma aha dadkeenu labadaba iya kaga soo dhoweysaba cuntada la cunayana dawlad kaa kontaroolaysa oo kaa jeegaraynaysa ma jirto nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam suuqa magaalada madiine intuu u baxay ayuu kii burka iibinayabuu burkiisii gacanta geliyey markaasuu nebigu arkay korka sarena waa ka engeeg hoostana waa ka qoyaan markaabuu nebigu ku yidhi war waa ku sidee waxaan hoosta ka qoyan ummaddaad ka iibinaysa waa maxay markaa wuhi yaa rasuulallah samada ayaa roob baa yimid mar dhow oo intii korka saarnayd ee iga qoyday baan hoosta mariyey buu yidhi markaabuu nebigu yihi korka intood soo marisid may dadku arkaana oo haddii ay doonaanna kaa iibsadaan sidaa kaaga iibsadaan hadday doonaanna may iska dhaafaana man khashanaa falaysa minna buu nebigu yidhi ninka ganacsiga iyo tijaarada nagu khaa'ima buu nebigu leeyahay annaga naga mid maaha buu nebi maxamed yidhi calayhi salaatu wasalaam